de labada xisbi mucaarad waxa loo baahan yahay dhaliisha dawladda inay ka faa'iideystaan oo markay dawladda de meel ay dhaliil ku leedahay arkaanayna ay halka qabtaan dawladuna way istoosinaysaa laakiin maanta waxa waa laba shirkadood baan isle waa laba shirkadood bay noqdeenoo midna de ninka de arkaysaan uu mas'uul ka yahay oo de marba jeebkiisa ku jirto 180 xisbiye Nairobi lagu sheegi jiray la oran jiray shaabad iyo bayna sameeysato ba ka xigta tuurta lagu sidan jiray de midna muxuu ahaay Cabdiraxmaan ba isagana ka mas'uulaho oday u ahaa isagana waxad mudabarigii hore waa dhaamay u ciiday inuu iminka isaguna maaragtay gabay heerkiisa mucaaradeed u gabay baad muddo marka iminka anigu waxaan isleeyahay ra'yigayga labadii xisbi mucaarad waa laba shirkadood shirkadahaas bay lamidin shirkadda Dahabshiil shirkadda Talisom shirkadda muxuu ahaay Omar shirkadahaas lamidin